wararka saaka naga soo gaaraya deegaanada hoostaga degmada Buulebardi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dagaal aad u qaraar ah u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka iyo ururka argagixisada ah oo bariyahanba halkaasi ku dhumaalaysanayay. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii dadka deegaanka ay ka war heleen meelaha ay isku urursanayeen argagixisadu, waxayna soo wargeliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan degmada Buulebardi ee gobolka Hiiraan, waxaana sidaas ku bilowday howlgal xooggan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen dhulka hawdka, waxaana halkaasi ka qarxay dagaal aad u xooggan, waxaana dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay saaki meelo fara badan ay ka saareen argagixisada, isla markaana ay ku dileen maleeshiyaad fara badan oo muddo fara badan ka barbardeemayeen ururka argagixisada. Howlgal aad u xooggan ayaa maalmihii la soo dhaafay ka socday deegaanada hoostaga degmada Buulebardi ee gobolka Hiiraan, waxaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xaqiijiyeen meelo fara badan isla markaana ay ka saareen argagixisada.